السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxa weeye taariikhdu waa 14 bisha Shacbaan 1442 hijriyada. habeen dambe haddii Ilaahay ka dhigo waa habeenka 15 bisha Shacbaan. sida Nabiga sheegay alayhi salaatu wasalaam hawl weyn baa habeenka dhacda. waxa weeye khalqiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunyada ku nool oo dhan ayuu Ilaahay dambi dhaaf. waxaana laga reebaa dambi dhaafkaas laba qolo oo kaliya. labadaas waxa weeyaan qof aan muslim ahayn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax la wadaajay diin muslima shaqo ku lahay iyo ka labaad oo ah laba qof oo ay wax ka dhaxeeyaan ama ummad ay wax ka dhaxayso oo aan xumay dhexdooda ta marka labada waxaan ahayn afiskaas way helayaan. waana habeen dhammaan hawl badan ay dhacdo, xukuumo fara badan ay dhacaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala bishii Ramadaan ee khayrka lahayd baa inagu soo dhow. waxaan leeyahay Ilaahay ina gaarsiiyo. fariintan markaa muuqaalkan u duubaya waxaa weeyaan qof kastaba intuu haddaba fursadaas si aan looga reebin sidaa maskaxdiisa u wanaajo, sidaa wareejo ha eego waa qof ay mar un wax dhex mareen ama ay wax u dhexeeyaan. intana teleefon ha u diro, hadduu la ka maqan yahay, hadduu la joogana ha la wadaago, ha la iscafiyo. adduunyadani waa iska hawlo badanta walaalayaal. waxyaabo yaroo maashaa dhammaanaysa ayaa wax kule ummadii Ilaah oo dhan garanaysaa adduunya jacaylkaasaa kala dilay. hadday dad qaraabaa tahay, hadday dad walaalaa tahay. marka waxa weeyaan bal fursadaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaanu inaga reebin aan ku wada dadaalno. naftayda iyo naftiinaba waxaan ku dardaarayaa inta aanay xafladaasi gaadhin oo laynaga reebin qof kastaaba ila dantiisa ku jirta moogta. way sanadka dambe inuu gaadhiyo kale Ilaahay baa laga faa'iideysto, hana la iscafiyo. anigaana ugu horeynaya dhammaan cid kasta oo walaalahay wuxuuna dhex mareen halkan waxaan uga dirayaa cafis. intaan xasuustana waxaan jecelahay inaan la wadaagi doono. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.